Arsenal doonisteedu waa halka u sarreysa. Chelsea xaalkeeduse waa jabka jeceli. Sidaasi oo ay tahay 5 gool oo hor leh, 3 dhibcood oo hor leh, xidigo hor leh, kulan hor leh. Mar kale 2 kulan inay ciyaartay ayay ismuujisay Arsenal hogaankana ay hayso. Iminka taasad caana boole waxay ugu fadhidaa kuwii iyagu imtixaanku sugayay City oo ay leedahay carkee anagu gudanay hawshayadii karkiina naga deg nimay ku hadhay ayay hawle haysaa. Xasuuqii weynaa ee Chelsea ay u geysteen ee hogaanka Premier League-na ay ku sii raaxaysanayaan. Arsenal ayaa 5-0 ku burburisay Chelsea oo ahayd koox kala daadsan oo sida caruurta u dheelaysay, waxaana goolashan qaybsaday 3 ciyaartoy oo la saaxiibay shabaqa kooxda Blues oo hoyga u noqday kubadaha ay ku soo tooganayaan ciyaartoyda Arsenal. Habeen shabaq ruuxasho ka daalay goolahayaha Chelsea ahaa mid ka soo daabulayay hadba kubadda weydaarata ayuu xaalku ahaa. Kai Havertz ayaa 2 gool ka dhaliyay kooxdiisii hore ee Chelsea kuna dabaaldegay, waxaana 2 kale ku daray difaaca midig ee kooxda Arsenal ee Ben White isaguna yidhi kuwii iga shakiyayow xagga horena waan ka aqaanaa. Halka goolka furitaanka uu kaga naxiyay Blues xidiga reer Belgium ee Trossard, samata bixiyaha gurmadka degdega iyo go'aamiyaha ka farxiyaha taageerayaasha Arsenal. ciyaartan oo ahayd mid dhinac kaliya ka socotay oo ay ciyaartoyda Arsenal siday doonaan ay ugu damaashaadeen garoonkooda ay taageerayaashooduna waqti hore iska soo xaadiriyeen ayaa daqiiqadii afraad ee bilowga ciyaartu waxay Gunners hogaanka u dhiibay Trossard oo yidhi wax badan hana sugina. kubaddu garabka midig kala soo galay ayuu ka dhex saaray lugaha goolhaya Petrovic oo isagu gurmad u baahnaa balse aan helin garbihii uu filayay. goolkan ayaana ahaa midka kaliya ka dhashay qaybta hore, laakiin Chelsea ayaa uu nasiibku caawiyay oo ilaa 5 kubadood oo kale oo gool loo qaatay ciyaartoyda Arsenal la seegeen shabaqa, waxaana uga mudnayd fursad uu xidiga Havertz ka helay goolka hortiisa oo darbad ku qabtay uu goolhayu badbaadiyay. habeen gurmadkii uu filayayna uu isagu waayay. gacaltooye meesha ma joogta miya maaya wuxuu Chelsea leeyahay haa ilmo dollar barkade maana heena waaba lagu tuntayba. war Arsenal nimanku ilmo dollar barkade war nimankani waa ninkii Mareykanka bilyaneerka ee dollarka sariirtiisu ahayd baa niman kale war bal wuxuu ka sii qaato war bal ka kala daaya sida male dhagaweynaha wacd ya maanta haddaan roobdiino aan madfici qoyin waanu sii wadaynaa hawsha bay leeyihiin taasoo xiriir ahaan lahayd haddeerba horyaalkani muran ma galeen Arsenal idinka istaayacay laakiin dadaal wacan durtabaha hawshini waad gudateen nimay ku hadhay hawle haysaa taasana boodho ugu fadhiisatay. daqiiqadii 52aad ayuu Ben White hogaanka u sii dheereeyay Arsenal oo u dhaliyay goolka labaad oo yiri guusha waa xagga iyaga, balse Havertz ayaa 5 daqiiqadood oo kaliya kadib ciyaarta ka dhigay 3-0 oo yiri inaan meedahaan u garaacnay arka. waxaanu si weyn ugu dabaaldegay kooxdiisii hore isagoo dhagaha isqabtay oo yiri warkiina maqli maayo casaankow ii wada sheekada kuwan kale way iska duryamayaan maana maqlayaba waxay leeyihiin. Kai Havertz iyo Ben White ayaa mar kale ku noqday gool dhalinta min hal gool saxiixay iyadoo ay Gunners ku dhawaatay inay keento gool lixaad oo ay kubaddu birta kaga dhacday xidiga Fabio Vieira oo isla markiisa iimaan la'aanta gool ku qaaday oo kaasoo bedel ku soo galay. natiijadani waxay ka dhigan tahay inay Arsenal haysato 77 dhibcood oo ay kooxda Liverpool la haysato 74 iyadoo marka Arsenal ay hal kulan dheer tahay, laakiin si tooyadu 32 ciyaartay halka Arsenal 34 ka ciyaartay Liverpool 33 oo habeenkan caawa iyadu ciyaari doonto. Man City 73 dhibcood bay leedahay. alla nimay ku hadhay hawle haysa hawl adag ayaa sugaysa niman halkeera hawl adag ayaa sugaysa ya Liverpool iyadu Everton ayay ismudanayaan, laakiin City iyadu maalinimada Khamiista ciyaari doonta haddii alla ka dhigo. marka City 2 ciyaarood ayaa baaqi u ah oo 4 dhibcood waqtigaasna iminka la joogo ay ka dambayso Arsenal. waa haddii ay labada ka soo gudato xulbaabo sidoodu ay ku noqonayaan, laakiin ya nimay ku hadhay hawle haysa Arsenal ka faraxalat. marka kulankan isdul taagno nimankan Arsenal 27 jeer ayay isku dayeen goolka 10 bay ku aadiyeen. Chelsea mise 7 hal way ku aadisay. waxay qabani aanu ma garanayo. boosisika 44 ay Arsenal lahayd 5 gool ku dhalisay halka Chelsea 56% boosisika ay lahayd ku badaysashada, laakiin 0 gool ya waa khasaaro kurra. 495 baas bay samaysay Arsenal, waxay saxday 437 baas 5 gool way ku dhasheen. Chelsea maxay samaysay 619 baas 547 baasna way saxday. halkay ku dambeeyeen goodkoodii Jackson buu ku dambeeyay cirtoogtay ya iyo harkeedka carara iyo koonayaasha. Arsenal 4 bay heshay nimankan kalena intanay helay waynu ogna haye maxaa la qabanay
faawaladun bay ka adkaayeen yaa 12 iyo 11 ay kala yihiin marka Chelsea yaa meeshan maraqsaar bay u timi walow dee kooxdu FC Palmer bay ahayd FC Chelsea nagu meenu arkin maalmahan xitaa markii qosleeyeen ninkiina way fadhiisiyeen Palmer ahaa ninkaasoo isagu bandhig cajiiba ku jira waa ninka seasonka 20 gool siiyey 9 assistant sameeyey jaanisiyada uu abuuray 250 yihiin yaa bogoska kubadaha uu ku taabtay 113 ay kor u dhaafeen bandhigiisoo dhami uu yahay ayay leeyihiin hadduu laba ku rooyay waa kaydkan u dhigan xaguu Pochettino niyo uu soo colaadinaya halka Jackson uu ku biiray liiska ugu khasaarinta badan 18 baa la maraya cami Jackson intii la soo noqday iyo season kanba 18 buu maraya laakiin rag baa ka horeeya raggaas ka horeeyaan laakiin iyagu kooxoodii baa shaqeeyay iyagii baa shaqeeyay oo intay dhaliyeen iyagu waa tirabeel laakiin Jackson khasaaru ku raa isaga wixii xirka maraya yaa rag kale walaa ka horeeyaan de Haaland iyo Isaaq iyo Salah iyo Solanke meesha hogaaminaya yaa marka runtii saasoo tahay yaa Jackson kaliya wuxuu ka adeegay xataa Xasaan buu ka badbaaday markan uu toomayaashu ku qaadan gaar kubadana Xasaan bay ahayd hadii caadi loo eegi lahaa ninkan dacaad u ballaariyay oo u dacsay iyadoo kubadda adkiisa ay ka baxday halis weyn uu galiyay isaga laftarkiisa yaa marka Jackson waa khasaare caadiya xilli taageerayaasha Chelsea ay yiraahdeen London waa anago championka nimanka haysta waa anaga laakiin maxaa loogu jawaabay Xasaan magaalada London waxaan ahaan jiray ka bax waqti xaadirkan iyo u shidanta taageerayaasha Arsenal oo ololkooda macaashidanaya maradii casidna cirka u taagaya oo London is red is not blue fahamta علي shay kullu kalaam yaa waxaan ahaan jiray laga soo bax Man United bay waxaas la hadheen yaa kaga qudura qaado marka sidoo kale Arsenal waxay xataa caawad goolka u dhaliyay ninka la yiraahdo Tracer wuxuu noqday goolkii boqolaad ee season kan ay dhaliso kooxda Arsenal 100 gool ayay sida ku gaadheen ciyaareedkan yaa nimanka sanadka shaqa ka go'an bal Martin Odegaard garoonka meesha balayno eegno meel kasta uu ka joogay baasaskiisu meel kasta way ka baxayeen 56 baas buu sameeyo 8 kaliya khaldamay in nimankan shaqa tagahayeen ay waxyaabaan ku tusinayaan ninka la yiraahdo Kai Havertz 2 gool waa la dhaliyay afar shoot waa la tuuray 29 baasna waa la sameeyay 2 kubadoodna waa la soo dilay yaa wala soo celiyay shaqa la qabtay yaa taageerayaasha waxa la warkiina aanu ma maqlo Xasaan koow igu dhawaaqa madfacayga waxaan ahayn ma shaqeynayaan ta kale de khasaaro ku raa baan leenahay Chelsea dhibcihii ugu yaraabay garoonka ka gurteenay markay qiimeynta la eegay halka nimankan Arsenal la wada hay ay ahaayeen oo niman ciyaar u soo diyaar garoobay ay ahaayeen David Raya ayaaba 7 iska qaato la rawaxay Ben White 7.5 yaa Saliba 7 Gabriel 7 Tomiyasu 7 Martin Odegaard 8 Thomas Partey hada waa Thomas Partey yaa 8.5 yaa Declan Rice 8 Bukayo Saka 7 Kai Havertz 8 Tracer 7.5 ilaa 7 qaatay halka Tuchel ma garanayn gool hayaa Chelsea waa 4.5 ninka la yiraahdo Gilchrist waa 5 Disasi waa digsigii 3.5 bal 3.5 maxaad moodaa yaa waryaare waxaad moodaa de yararka kubadda dabadda ka soo qabta dhinacaanay kubadduba ka bixin mid mar iyo laba uu soo qabtay Partial 3.5 Karkala 4 war nimankan maxaa ku mayba de ciyaarin maxaa la qiimeeyaa kaasaydii malaayinka dollar lagu beeray 3.5 reer dollar barka khasaar kii kale isna malaayinka Fernandes ee lagu kharashiyo tir beeray 3.5 kaasayda 115 milyan la jooga 3.5 qiimeyntiisa garoonku wayta Maduka 4 Gallagher 4.5 Mudreek wabaleeg masiibooyinka meesha ka socda 4 Jackson 4 haduu 4 helay ku birasidaaba Pochettino maca 3 waxaana ka dhigan tahay markii 8aad ee Pochettino uu wajaho kooxda Arsenal oo markaasi markii shanaad laga badinayo 3 barbaraam mooyaane guriga Arsenal wax guul haba yaraatay kuma gaadhay halkaan caqabad ba ka haysata guulaha ilaa iyo hadda waxa badan Arsenal 83 guulood ayay sii socotaa sida loo garaaco kuwa ugu dhow cadawgooda ee deriskooda way taqaana halka Chelsea 60 soo socoto waatan gabal baa soo dumay ma dhaxdan haysan ma sidana xaalay ahaani hadii malaayiin dollar iyo reer dollar barkada ay yimaadeen ayaan daradaas haysata nimanka iyagaana yaa intaan kaga tagno Arsenal
liverpool oo maca salaameynaysa xidigaheeda qaar kuweeda ugu muhiimsan. maxamed saalax oo hoos dhac ku yimid intii uu curtay sanadkan cusub oo ay isku raaceen dhaawacyo ka soo gaadhay tartankii qaramada Afrika ee bishii January, sidoo kalena juga soo gaadhay marar kala duwan ayaa kaga maqnaa kooxdiisa, taasoo la sheegay in liverpool ka fiirsanaysa inay ogolaato inuu iskaga tago iyadoo laga iibinayo kooxaha Sacuudiga ee lacagta badan dul haya xidigan. 31 jirkan oo qandaraaskiisa uu sanad ka harsan yahay ayaa tartankii qaramada Afrika u baxay bishii January isagoo 20 ciyaarood oo Premier League dheeray, isla markaana dhaliyay 14 gool iyo 8 caawiye ka noqday. laakiin intii waqtigaasi ka dambeysay waxa uu ciyaaray 7 kulan oo horyaalka oo kaliya waxaanu dhaliyay 3 gool iyo 1 caawin. sida uu qoray wargeyska darsan, liverpool ayaa ka walacsan hoos u dhaca ku yimid qaab ciyaareedka Saalax iyo taamahaanshihiisa oo aad u liita, waxaanay diyaar u yihiin inay ka iibiyaan kooxaha Sacuudiga oo lacag badan u soo bandhigay Reds bishii January iyo suuqii xagaagii hore ee aynu soo dhaafnay. ninkaasina inuu socdo ayaa loo badinaya. warkii Anthony habaarka qabay Man United ba isaguna aamusnaantii ka baxo soo qowdhamay. Anthony oo falkan uu sameeyay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu doonayay in taageerayaasha kooxdiisu ay garab istaagaan naadigooda, waxaanu yiri qoraalkii uu soo dhigay sida tan: Confetti waxay cadaysay sababta ay u soo gaadhay semi-finalka. waxaanu taageero ka raadinaynay taageerayaasheeda mar haddii aanu soo gaadhnay finalka. sida ay jamaahiirtaydu ula macaamileen ciyaartooydooda ma ahayn mid fiican. kulaylkii waqtigaas ama xamaasadii daraadeed ayaan uga falceliyay sidii daandaansiga oo kale ahayd, iyadoo xidigan falkan uu sameeyay ay ku canaanteen halyeeye hore oo kubadda cagta iyo kooxda Man United. laacibkan ayaana degta qabsaday markii Hoyland uu dhaliyay rikoodhii ugu dambeeyay ee guusha ku hogaamiyay kooxdiisa, waxaana arrintan ku canaantay taageerayaasha iyo halyeeyadii hore ee Premier League. ninkaasina Saylanti wuu ka baxay ugu dambeyn. kooxda Liverpool la xiddig ka mid ah safkeeda ayaa la sheegay inuu dhaawac ku maqnaanayo kulanka Everton. Klopp ayaana xaqiijiyay inuu Jota garoomada ka maqnaan doono muddo 2 toddobaad kadib dhaawaca soo gaadhay. Jota ayaana ku soo laabtay shaxda Liverpool kulankii Fulham, kulan ka tirsanaa horyaalka. koor kulanka Everton, Klopp ayaa xaqiijiyay in Jota uu dhaawacmay kulankii Fulham, waxaanu yiri markuu hadlayay: nasiib darro, Jota ayaa dhaliyay gool, wuxuuna dareemay dhaawac. 2 toddobaad ayuuna ka maqnaan doonaa garoomada iyo meel kubaddi taalo oo xidigaasi wixii Fulham ka dambeeyay lama arki doono 2 toddobaad. waa maalmihii leembaha xidigaasina reer Liverpool wiilin daayay. xubintu waa kariski iyo kala haadintii. anigu waxaan ahay Maxamed Tirike. intaynu xubintan mid xigta saaxiibayaal ku kulmi doonno inta ka horeysa sida ay amaana Allah. Smart Dental Clinic ku dhoola cadee $100 kaliya, qiimo dhimis 40% ah. Smart Dental Clinic xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay ku samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed. adeegyada qiimo dhimista lagu sameeyana waxa kamid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo kaliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin. haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban, dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin. sidoo kale Smart Dental Clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh. hamogaanin Smart Dental Clinic oo ku taala gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan agagaarka Hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tagaysa xarunta debdemiska. inta aanad gaarin waxay ka soo